بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داودي لهانتين بميل كستو جوجتان كسو دوادا برنامجكيني دور جوجتا barnaamijkeena duur joogta waxaynu ku soo qaadan doonaa saxaaraha loo yaqaano Naybaan iyo weliba boqorka saxaaraha balse marka hore fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga dooro calaamadda jeliska amba gambaleelka sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaaraan fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay waxaa dhacaysa dabayshii xagaaga oo qarisay duurjoogtii iyo weliba geedaha dilayaasha khatarta ah iyo saxaaraha Naybaan waa koonfur galbeed Afrika waa qayb ka mid ah dalweynaha Namibia waxa ku nool libaaxa ugu weyn qaaradda Afrika dhererkiisu wuxuu yahay libaaxan waa 10 feet waana boqorka saxaaraha mid kaliya maaha boqorka saxaaruhu waa laba weliba waa laba walaalo ah iyo 6 goolood oo ay leeyihiin waa raxan isku tiirsan iskuna lamaan waxay ku nool yihiin ama xuduud u leeyihiin dhul gaaraya 800 oo mayl oo isku weer ah waa dhul dabiici ah boqortooyada qoyskan labada aar waa mid ay u fududay in ay ugaarsadaan duurjoogta maadaama ay ku tiirsan yihiin qoysku laba aar oo xooga roobkii xagaagii ee ugu dambeeyay ee helay Naybaan waxaa xuduudka ku soo laabtay ugaar tiro badan maadaama uu dhulkii caws iyo barwaaqo noqday
balse waqtigan hadda la joogo caws ma jiro, biyihiina way dhammaadeen, geedihiina way qalaleen. waxaanu dhulkii isku beddelay dhul oomana ah oo jiilaala. waa bishii 8aad, waxay duurjoog kastaa ku dadaalaysaa sidii ay noloshan adag ula dabbaalan lahayd. muddo haatan laga joogo nus qarni, duurjoogta halkan ku nooli aad bay u adag tahay nolosha ay ku nool yihiin. dhammaan duurjoogta naybaan ku nool oo dhammi waxay isugu yimaadaan goob yar oo ay biyo yari ku sii hadhsan yihiin. raxantuna goobtan ayay mar kasta ku dhowdahay si ay uga raadsato cuntadeeda. Wait and consider their options. duurjoogta yaryari inta badan libaaxa way ka baqaysaa maadaama uu biyaha u dhow yahay. raxantuna hadda waxay eegaysaa fursaddii ugaarsiga ay ku ugaarhsan lahayd kuna heli lahayd ugaadh ay cunto. waxaase goobta ku soo galay xoog qoys maroodi ah. waxaanu duurjoogtii kale ka ceshaday biyaha yar ee halkan ku sii hadhsan. libaaxyada iyo raxantu in badan ayay biyahan ag fadhiyeen. waa gelin dambe, qorraxdu way sii gaabanaysaa. hadda waxay bilaabayaan weerarkoodii. durbo waxay weerareen waa maroodiyadii. way kala qaybiyeen maroodiyadii oo 2 qaybood ayay u kala jebiyeen si ay qaybi goonni ugu baxdo oo ay kaasi ugaarsadaan. kan goonnida u baxay iyo dhashan yari waa maroodi yar oo dhowr saacadood jiray. waxay ka lumiyeen qoyskii maroodiyada ahaa ee ay la socdeen kadib markii ay ku dhex dhaceen raxantii libaaxyada ahayd.
iyagu gooni ayay u baxeen. waa maroodigan iyo weliba dhashin yari. raxantu fursad iyo jaanis bay u arkayaan, waanay daba socdaan oo kama hadhayaan. maroodigan weyni aad buu u ilaalinayaa dhashan yar oo dhowr saacadood ka horuun dhalatay. ilaalintiisu kuma koobna inuu libaaxa ka ilaaliyo, balse wuxuu arkayaa inuu aad u itaal daran yahay, socodkuna uu ku adag yahay. sidaa awgeed ayuu maroodiganu caawinayaa marka uu soo istaago midhka yari. ugaarsadahan daba socda isagu wuxuu u baahan yahay inuu gobol ku dhaco siduu uga faa'iidaysto. waanu arkayaa inuu itaal daran yahay midhkan yaree dhasha ah ee dhowr saacadood ka horuun adduunyada yimi. hooyadu way dhiiri gelinaysaa, waanay kicinaysaa. marka uu leecaba way qabanaysaa oo waxay isku dayaysaa in uu raaco oo uu midhkan yari daba socdo, balse awooddaasi ma laha maadaama uu dhowr saacadood ka horuun uu dhashay, cagihiisuna aanay weli adkaanin. socodkii iyo weliba raxantii ku dhex dhacday ee kala qaybisayna ay noqotay inay gooni u lumaan oo ay duur kale iyagu ay maraan, qoladii kale maroodyada kalena ay meel kala marto. raxanta libaaxyadii fursadda ay sugaysay waa habeen. gabalkii baa u dhacay, waanay madoobaatay. maroodiga indhihiisu waxay aragga ku wanaagsan yihiin maalintii. hadda wax badan ma arki karo, balse ugaarsaduhu ama libaaxu aad buu ugu dhowaanayaa, waxaanu u arkayaa si cajiiba. sida maalintii oo kale uu wax u arko ayuu libaaxu habeenkiina wax u arkaa. durba maroodigii weynaa iyo kii dhasha ahaa way ku dhex dhaceen, waanay kala lumiyeen. maroodigii yaraa gooni ayuu u lumay, maroodigii weynaa ee dhalayna gooni ayuu isaguna u lumay. walow uu difaac uu sameeyo islahaa ka difaac, balse dhashii yarayd waa ay ka luntay.
ugaarsaduhu waa siduu doonayey inuu weliba labadoodanna uu sii kala lumiyo oo uu midhkaa yar uu ku casheeyo caawa. fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinahayaga. Dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. Sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. Fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. Intaa haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. durba midhkii yaraa way weerareen. waa tahay daawadayaal, qaybtan koobaad intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. inta aynu ku kulmi doonno qaybta labaad, la soco barnaamijkeenna. waxaanu dhammaanteedii kaga tegaynaa nabadgelyo.